mudaharaad ballaaran oo ka dhacay maanta magaalada Faysbaadhan ee xarunta gobolka Haysan. Mudaharaadkaas oo ay soo qaban qaabiyeen jaaliyada Soomaaliyeed ee gobolka Haysan. mudaharaadka oo daarana sidii Soomaalida ugu dhaqan wadankan Jarmal guud ahaan ay u heli lahaayeen xuquuqaha asaasiga ee kaga maqan wadankan ayaa waxa halkaasi ka hadlay waxa hadaba halka dadka kula hadlay mudaharaadayay xubno ka socday aqalka baarlamaanka gobolka Haysan iyo xubno ka socday jaaliyada Soomaaliyeed ee wadanka Jarmalka. Sie haben alles recht hier zu demonstrieren. Wir sind von der Partei Die Linke, ich bin Abgeordnete im Hessischen Landtag. Wir haben jetzt hier ausgemacht, dass wir Sie unterstützen möchten. xildhibaanad ka tirsan xisbiga linkiga oo ka mid ah baarlamaanka gobolka Hessen waxayna noo ballan qaaday in ay garabka anaga taagan yihiin oo qadiyadeen ay baarlamaanka iyo meel walba ay ka sheegi doonaan. waxay kaloo ayadana noo sheegtay in marka laga soo laabto fasaxa kal fadhiga hadda samarka bilaabanaya in ay ballan u sameyn doonto Soomaalida oo mar labaad la hadli doonto. hadda gabadhii aan joognaa laakiin wax kasta walaalkii Cabdullaahi baa horay u sheegay waana saas insha Allah laakiin waxaan ka codsanaynaa yacni Soomaalida in tookada dambe noo imaadaan sidii bulsho kasta dadkeeda lagu qiimeeyaa haddii bulshadeena aan gaabino waxay ka dhigan tahay in arrintaas yacni aan horumar zaid aan ka gaari karin marka insha Allah taala haddana balamaha si loo sheegay waxa way rajo wanaagsan aan qabnaa إن شاء الله تعالى أنا وحوي فردي قدام بوحن رجعنا وحياة عصب إني Soomaalida meeshan joogto dhan inay waxyaalo badan laga bedeli doono xagga sharciyada arinta kaloon raba inaan sheegana waxa weey yani dawladda Soomaaliya safaarada halkan ku leenahay marka waxaan jeclaan lahaa arinteenan inaad la sii gudbiyo ilaa Soomaaliya xataa dawladeeda ay gaarto sababtoo ah dad dhan aan qoom dhan oo la yaqaano oo yani jiro oo safaarada wadanka ku leh haddana waraaqadaheeda la aqoonsaneen والله وانا dhibaato weyn waxa ka sii daran midna kala xagga sharciyada hadii la dhaw baasaboorka waxa ku qoran ninkan wuxuu sheegtay asaga unba afkiisa ka sheegtay wax cadaan ah ma laha ma fahanta marka insha Allah waxaan rajaynaynaa in insha Allah aan horumar badan ka gaari doono insha Allah waashina madaxay iyo raadiyaha iyo TV-ga wadanka Jarmalka oo idin leh sidaas iyo nabad geli